Shirweynihii 13aad ay yeeshaan ururka cilmi baadhista Soomaaliyeed ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa waxaana markii labaad marti gelisay shirkaasi jaamacadda ugu weyn Soomaaliland ee Hargeysa waxaana si weyn shirkaasi loogu xusay aasaasay ururka cilmi baadhista Soomaaliyeed Xuseen Tanzani iyadoona hadda ay ku beegan tahay sanad guuradii 4aad ee aasaaska ururkaasi shirweynahani oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland aqoon-yahan kala duwan oo ka kala yimid dalka dibaddiisa professor wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo badiba aqoon-yahanka reer Soomaaliland ayaa ugu horeyn waxa shirkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda marti gelisay shirkani ee Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muusa shirkan maanta aynu u fadhino waa markii afraad ee uu ka dhaco dhul ama meel lagaga hadlo afka Soomaaliga 2001 ayay ahayd jaamacadda Hargeysa oo markaa bilow ah oo laba kuliyadood ay ka bilaaban yihiin waqtiga inuu ka dhaco waa ilaahay mahadii haduu mar labaad ku soo noqday ciid ama meel af Soomaali lagaga hadlo mar labaad inuu ku soo noqday waxaan aad iyo aad ugu ducaynaynaa inuu mahadnaqaynaa kulli professorkii aasaasay Xuseen Tanzania Soomaalidu waxay tiraahdaa maan rag waa mudaciyaafkood wala iskhilaafaya laakiin wax iska mid ah dadkii daawadiisii afka Soomaaliga ku hadla inay shirka ka soo baxdaan waan rajeynaya geestooda professor Axmed Ismaaciil Samatar Dr. Eso Adnaadan Ismaaciil Dr. Xuseen Bulxan iyo xubno ka tirsan ururkani uu shirku u furmay ayaa halkaasi hadalka iska daba qaatay waxaana rajo weyn ka muujiyeen in shirkani inta uu socdo qodobo muhiim ah oo waxtar leh ka soo bixi doonaan waxaana si weyn u xuseen aasaasi ururkaasi Xuseen Tanzani in badan dibadda waxa la yiri dibadda waxay ka taagnay meel nabad lagu qabtaa ma jirto meel degani ma jirto meel leer ka jira ma jiro intiiba maanta wayna haysan alxamdulillah rabbil alamin sidaasana ku soo noqotay way halkan isku that many people in the world who either study or know about Somali society have enormous affection for Somalis but they also know us intimately and sometimes they don't speak intimately about what they know but this fellow was quite courageous and he said, you know, I wonder, is it true that Somalis, good people, generous to other foreigners, particularly others, but they are very miserly in the way in which they acknowledge each other's achievements. Yeah? Is that true, he said. wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Gurey Barwaaqo ayaa si rasmi ah u daafuray shirkaasi magaalada Hargeysa oo markii hore loo yaqaanay inay tahay xarunta dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed imikana ay muuqatay in ku xiisibinayso inay noqoto xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed martiqaadayaasha dadka halkan ka soo qayb galayaasha dibadda ka yimi waxaan ka codsanayaa inay fariintan naga gaarsiiyaan Soomaaliland in aanay la mid ahayn kana mid ahayn Soomaaliya nabadgelyo jirto hadda laga bilaabo waxa inoo furan shirki cilmi baarista Soomaaliyeed ee 13aad shirweynahani ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waa Idris Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa